halkan waa dhismihii hore ee wakaaladda horumarinta biyaha ee xamar oo ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaa ka socda howlo dib loogu dhisayo xaruntaasi oo ay wado wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya siyaaya xilka wasiirka wasaaraddaasi ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Cismaan Libaax Ibraahim oo uu weeliyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta kormeer howleed ku tagay dhismihii wakaaladda horumarinta biyaha ee xamar oo hadda ay ka socoto dhisme xarun shaybaar biyaha ah iyo macahad lagu baran doono biyaha iyo ilaalintooda. maanta waxaan soo booqnay dhismahan oo runtii muddo la sugayay oo ku saabsan meel biyaha lagu baaro laab iyo iskuul biyaha lagu barto. marka runtii meel fiican bay dhismihiisa maraysaa. marka laabkaasina waxaa loogu talagalay sidii biyaha lagu baari lahaa. waad ogtihiin xaaladda biyaha maanta ay ku sugan yihiin magaaladan Muqdisho iyo dhammaan dalka oo dhan. inay iska socoto ay tahay oo aanan laabab iyo wax aan la isticmaalin. marka sharciga biyaha oo wasaaradda ay golaha wasiirada ay marsiisay baarlamankana ansixiyeen hadda golaha aqalka sare hor yaalo ayaanay ku cadahay in ma aragtay la samaynayo laab oo biyaha quality-gooda lagu baarayo. tan kale waxa waaye iskuul oo asagana ma aragtay lagu baranayo biyaha lagu baranayo ayaa asagana weheliya. marka dhismahaasi runtii waxaa naga caawiyay bangiga Afrika ayaa naga caawiyay. marka runtii wasaaradda waxqabadkeedii ayay ka mid tahay maadaama runtii shaqadeena ay tahay ama wasaaraddu ay u edman tahay biyaha oo wakiilna ay uga tahay dawladda. marka runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in dhawaan ay soo gabagaboobi doonto lagana bixi doono ma aragtay biyo xumadii ama biyihii aan la ogeyn oo la iska isticmaali jiray. taana waxa waaye runtii dadaal dawladda xukuumadda hadda ay samaysay ayay ka mid tahay. madaxda wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee Soomaaliya ayaa ku howlan sidii dib u dhis ay ugu samayn lahaayeen xarunta wakaaladda horumarinta biyaha ee xamar oo hadda burbur xoogan oo ka muuqdo. halkaas ayayna wasaaraddu xarun ka dhigan doontaa. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.